munaasabad ballaaran oo si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaana lagu taageerayo musharax madaxweyne ra'iisul wasaarihii hore ee dalka mudane xasan cali khayre ayaa maantay lagu qabtay magaalada muqdisho. munaasabadan oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa ka dhacday magaalada muqdisho waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada sida dhalinyarada, haweenka, odayaasha, waxgaradka. waxaana ka soo qaybgalayaasha munaasabadda ay ka hadleen rajadooda ku aadan ku guuleysashada xilka madaxtinimada ee ra'iisul wasaarihii hore ee dalka ahna murashax madaxweyne xasan cali khayre. Soomaali hagaagtayo howlkarbaha okay ahila cabahano efteemo hanfeegina dhaaf hormareya heegsay hadafkooda hirgaalay ay halyaay qaran baha sharaxan howsha fool yaqaan awanin hame fiican hadafkeeso fogyay ahankeesona dhaafay hebel hebayahaynunay Soomaalida kala habawday hanfeego la tegay sidoo ku hormari lahaa buu ku haminaya ay halyaayo qeyra weleega hoggaankahay halyaayo qeyra weleega hoggaankahay waxaad higsayda helaha hortaada keen ay hadafka leedahana eebako hergeri ay halyaay qaran bahatee kan habsaamino ilaaho qeyrahe tanyaceel habad kasoo qaybgalayaasha waxay sheegeen inay aaminsan yihiin aadna ay ugu rajo weyn yihiin in uu mar uun talada dalka qabto ra'iisul wasaarihii hore dalka mudane xasan cali khayre oo ka mid ah murashaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada dalka. dadka ka soo qayb galay munaasabadan maanta lagu qabto muqdisho oo ay wajiyadooda ka muuqatay farxad iyo rayn ku aadan musharaxnimada xasan cali khayre ayaa sheegay inay aad ugu qanacsan yihiin isla markaana ay doonayaan mar uun majaraha dalka qabto mudane xasan cali khayre si uu halkiisii hore uga sii wado hawshii qaranka. qaybaha kala duwan ee bulshada ee maanta ka soo qayb gala munaasabadan lagu taageerayo murashaxnimada xasan cali khayre ayaa sheegay inay aad u taageersan yihiin waxaana ka mid ahaa bulshadii meesha ka soo qayb gashay barbaarta gaashaaman oo halkaas ka soo jeediyay suugaan ay ku cabirayaan sida ay u taageersan yihiin murashax madaxweyne mudane xasan cali khayre. sidoo kale qaybaha bulshada oo iyana dhankooda ka hadla goobta munaasabadu ay ka dhacaysay ee magaalada muqdisho waxa ay sheegeen inay ku qanacsan yihiin murashaxnimada xasan cali khayre isla markaana ay doonayaan inuu mar uun qabto talada dalka si uu halkiisii uga sii wado hawshii firfircooneed ee uu dalka u hayay. xasan cali khayre iyo xaakinada waxgaala xalaal ya xaaraha ninkii xirsi feeya dhigay xalaal ya xaaraha ninkii xirsi feeya dhigay laaluushka xakameeyayo aan xumaan lahayn xaqiiqada soo bandhigayo nafluhu xamdiyay mishaarka xaqu bixiyayo xaakinkeen ogyahay ciidanka xaqiisa siiyo xariirta hoogan ciidanka xaqiisa siiyo xariirta hoogan xilkan in la siiyaa saagay xaqiiqdu tahay xasano rasmi baahatiyo kila raadi jiray xasano rasmi baahatiyo kila raadi jiray Soomaali u rohono wadihigan ku wada rabnaa Soomaali u rohono wadihigan ku wada rabnaa colaadanagu raahagtay rajaha beelkanagu habsaaday colaadanagu raahagtay rajaha beelkanagu habsaaday inaad naga reebtabaan raygiyo rabnaa war xasan hala doorta walihigisna yuusan deegin war xasan hala doorta walihigisna yuusan deegin xilkan haloo dahayaa sahaga difaacaye asana dulqaadu hayo dada halka badan asaka damihina soo maali daraf walbaba
dadnimo xumadeena asahaga dawooli kara dhalinyaradii maanta ka soo qayb gasha munaasabada ka dhacda magaalada Muqdisho ee lagu taageerayo murashax madaxweyne ra'iisul wasaarihii hore qaranka Mudane Xasan Cali Khayre waxa ay sheegeen in munaasabadaha caynkan oo lagu taageerayo ra'iisul wasaarihii hore dalka ahna murashax madaxweyne Xasan Cali Khayre in ay sii socon doonaan munaasabadaha ilaahay baa horta mahadda iska leh maanta haddii Soomaali ay laambadii ay lahayd ay soo noqotay waxaanan boqolkiiba boqol aaminsanahay حسن علي خير إنه سوء عليه لامبضة مر لبعض يمر صدحات أنا أكو هاللي أفكر لأن يرتوقوي وحنو تاجر بوحة أنا قلنا هاي حسن علي خير وأنا تاجرين وحنانو عدينا إنا نحفل ذو نوعنا وكلاس ذا وقروح ذا بدن له أنا كو قبلنا إن شاء الله بإذن الله الكريم هرجيسة يبرعبه إن شاء الله munaasabadan maanta ka dhacday magaalada Muqdisho ee lagu taageerayo ra'iisul wasaarihii hore dalka ahna murashax madaxweyne Xasan Cali Khayre waxay ku soo beegmaysaa xilli kol hore uu shaaciyay Xasan Cali Khayre inuu yahay murashax madaxweyne oo u taagan qabashada xilka madaxtinimada dalka kaas oo ololihiisa doorashada ay si weyn uga muuqato gudaha dalka iyo dibaddiisa waxaana socdaalo kala duwan oo ku aadan ololihiisa doorashada ra'iisul wasaaruhu uu ku marayaa wadamo dhaca gobolka